marka ugu horeysa waxaan doonayaa inaan iftiimino sidra waxa ay tahay sidra waa mahad cilmi baaris oo la sameeyay 2015 haddana ay u dhowdahay ama bilowga harsan tahay 10 sano inay u buuxsamaan intay sidra jirtay waxa ay soo saartay 10 cilmi baarisood oo isugu jira daraasaad balbalaaran kuwa la yiraahdo policy briefs ama in marka aan u isticmaalo in markaas dawladda ama dadka ay qusayso markaas topic taagan ama arrin taagan lagu baraarujiyo dhibaatada ka jirta iyo sida wax looga qaban karo sidoo kale waxay sidra leedahay qayb kale oo mashaariicda oo iyadana fulisa arrimaha inta badan u badan arrimaha bulshada tan iyo intii la asaasay sidra inta awoodeeda wax isku dayeysay in ay markaas iftiimiso dhibaatooyinka ka jira dalka gaar ahaan arrimaha bulshada siyaasadda laftigeeda wax waa ka qoraa laakiin siyaasadda iyo bulshada marka la eego arrimaha bulshada waxaan u badannahay arrimaha bulshada waxaana dareenay in gaabka ugu badan ee haatan Soomaaliya ka jira inuu yahay arrimaha bulshada siyaasadda inta badan waa laga wada hadlaa Soomaaliduna iskuma waafaqsanaba siyaasadda laakiin arrimaha bulshada waa arrimaha aysan ka jirin inta badan isjiidjiidka oo nin walba ay u tahay dhibaato haysata sidoo waxay la shaqeysaa hay-ado gudaha iyo kuwa banaanka oo kala duwan oo ay ku jiraan jaamacadaha caalamiga oo dalalka dibadda ah yeelkadeeda arrinta cilmi baarista ka shaqeynteedu waa arrin adag adduunida ma jirto in wadan si toos loogu taageero arrimaha cilmi baarista laakiin waxyaabaha kale sida mashaariicda waa lagu taageeraa ummadaha wadan kasta isaga laga rabaa inuu dakhli la yimaado iyo miisaaniyad uu ku taageero arrimihiisa cilmi baarista waxa inta badan dunida marka cilmi baaristooda taageera dawladaha iyo maaragtay dadkan yiraahdo private sector-ka ama qidaaca khaaska ah sida darteed aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa Amal Bank oo iyadu garatay mas'uuliyadda bulsho ee ka saaran in ay qayb ka geysato maalgelinta maaragtay daraasadan mar ahayn markii ugu horeysay oo aan taageero ka helo Amal waxaan ka helaa taageero toos ah iyo mid dadban labadaba waxayna aanu la leenahay iskaashi dhow oo dhanka cilmi baarista ah waxaan filayaa mustaqbalka insha Allah ta'ala inaan ka wada shaqeyn doono cilmi baarisyo kale qidaacaadka kale ama hay'adaha kale ee gaarka loo leeyahayna sidoo kale waxaan ka rajeynaynaa iyaguna saasoo kale inay gacan ka geystaan arrimaha cilmi baarista waxa laga yaabaa dadku inay sadaqada u yaqaaneen oo kaliya ah masaajidada iyo laakiin adduunka maanta tartanka ugu adag ee dunida ku jirta waa cilmi baarista diyaaradaha aragteen muslimiinta haween baan la dhacayaa waxay ku yimaadeen waa cilmi baaris waxa la yiraahdaa Israa'iil lacagta ay ku bixiso cilmi baarista iyo dunida carabta inagu u aaminsanahay inay ummadda ugu qanisan waxa boqolaal jeer raba laama baa leeyahay inta Israa'iil ku bixiso cilmi baarista halkaas ka dareemi kadaan marka sida tartan loogu jiro adduunka in cid walba in cilmi maxaa yeelay Soomaalida xataa odayaasha ahaa way dareensanayeen baahida cilmi baarista laakiin inaga baan hadda dareensaneen baadiyaha hadda tagtid waxay dhahaan war la heliyaa tala la hel oo ay ka wadaan markii xog aan helo ayaan go'aan gaari karaa dawladda ama hay'adaha dawladdu waa dadka ugu baahida badan cilmi baarista in kasto oo budgetka ama miisaaniyadda dawladda oo iskaba xadidan darteed aan Puntland ama dawladda Soomaaliya aysan doqondo u sameyn cilmi baarista haddana hay'adaha dawladdu ma gaari karaan go'aamo waxtar ah haddii aanay helin cilmi baaris oo waxaan ay dhahaan informed decisions ma sameyn karaan haddii ay go'aan gaaraan aan cilmi baaris ku dhisnayna waxay noqonayaan wax hawtulhama ku dhisan wax marna way asiibi karaan marna waxa laga yaabaa in god kaga dhacdo arrintii ama waxa laga yaabaa wax ku bixi lahaa kharash yar ku bixi lahaa in lagu bixiyo kharash badan maxay la xog laga ma hayo sidoo kale waxay sidoo taageero ka heshaa hay'adaha caalamiga ah oo haatan ay ugu horeyso hay'adda Save the Children oo nala fadhiyo mid kamid ah mas'uuliyintooda oo iyadu ahayd tirarka iyaduna waaweyn ee sidra inta badan ka taageerayay arrimaha advocacy-ga iyo arrimaha u qareemida bulshada maxaa loogu baahday daraasadan waxay timi markii dhibaato marka ay wada dareemeen Amal iyo sidra oo ahayd in la arkay qulqul dibadda u baxaya oo dad Soomaaliyeed oo caafimaad raadisa xaqiiqadu waxay tahay horta ma jirto adduunka bulsho ku nool oo banaanka caafimaad u doona oo ma dhihi karo qof jooga Puntland ama Soomaaliya banaan baan ka xiraynaa inuu caafimaad mararka qaar dad baaba waxay u aadaan wax la yiraahdo medical tourism iyo waan iska soo jeegaraynayaa iyo in wadan kale soo arko taa laga hadlay waxa laga hadlayaa dad Soomaaliyeed oo qulqul ugu jira banaanka si ay u helaan arrimo caafimaad oo aysan sina ugu aadeen banaanka sabab dhaqaale aysan awood ugu lahayn iyo sabab bulsho iyo arrimo kale oo jira taas markii la arkay sidra iyo Amal saasa keentay inay daraasadan sameeyaan ma dhihi karo sidra ahaan daraasadan waa daraasad dhamaystirtay majaalkaas
dadka cilmi baarista yaqaana way yaqaaneen cilmi baarista waxa lagu tilmaamaa sida gurigan oo maalinba qof intuu yimaado dhagax ku daro maalinba nin dhinac ka eego saa darteed waxaan filaynaa in daraasadan ay gundhig noqoto laakiin lagu dhiso daraasaad badan oo kale oo fongoro badan baa ka jira meel kastoo Soomaaliya maanta ama majaal kastoo Soomaaliya marka daraasadan waxaan filaynaa inay noqoto barbilow laakiin yaan loo qaado inay tahay daraasad dhamaystirtay dhammaan problemka aan ka hadlayno laakiin waxaan isleenahay ha noqoto provocation ama inay istifsaas ku samayso in daraasaad kale loo dhaqaaqo waxayna ka mid tahay daraasaad badan oo inta badan aan samayno oo heerar kala duwan waxa iyadoo la isweydiin karaa isbitaalkan waxaan isticmaalay ereyga hal isbitaal baan niri laakiin kama wadno Puntland hal isbitaal ba u baahan laakiin waxa ka wadnaa in hadda intii daraasada aan la wadnay amal almost hadda 3 sano waata ama 2 sano labadaas sano gudahoodii waxaan dareemaynaa horumar laga sameeyay caafimaadka Puntland waxa jira isbitaallo aan jirin xilligan daraasada bilownay oo hadda qaab investment ama maaragtay maalgelin ah oo dad isxilqaama ay wadaan waxaan dareemaynaa in basic ama arrimaha asaasiga ah loo soo kacayo in la daboolo laakiin haddana wali waxa muuqata baahida ah isbitaal weyn oo isagu boqolkiiba adigu konton xataa dabooli kara saa darteed waxaan ku baaqaynaa in la helo isbitaallo waaweyn laakiin iskaba waxaan overlap aan isku samayn مثلا هدي إسبتال صدر مليون كوب بحذر الله هلا وعافي عن قولنا كلا إنا إيجاتك محوك حوك بدنيه هاي كو لابد صدح بالدبولة أدو بتيون إلوات دبولة أنت حتى فإذا وحي كجرت إنك صانا قناع سجى أقون وحي كجرت إنا تقول ركز مجال مال كلا أو يجو أناي حوك جسارين سلوه هلا complementarity أما إسكاملت مركا الله هلا إسبتالو إسكامل دولة وحنو باقينا كانوا وين بيكولات إنا قاعدته وسير كقال دور دولة العقد ما هيسول لكن ما أود لا دولة وحلقة ربع إن أبورتهم بيئة صاحب لا استثمار كاس سيدا إن شروع اللي هلا الله بهنا شروع بأرمها نبهين إسكا ما دراسة المركزات بنيجي دون أركي دون تا وحل إيه يا محيه شروع لخص مارتي فرها لقى مارما أنت كأيتهاي مركا فاسيلتي نوع عاسا للسماينا يو دولة وحي بحساب لولكا ومر هربا waxaa jira in dawladda Puntland ay gacan ka geysatay inay dhul ku deeqdo oo siiso dadka raba inay maal geliyaan arrimaha caafimaadka sidoo kale dawladdu waxay ka shaqeyn kartaa wax la yiraahdo BBB-ga ama public partnership oo ah in ay iskaashadaan wax isku darsadaan dawladda iyo dadka khaaska wax u leh waxa laga yaabaa dadku inay dhahaan dawladda xagee lacag wax ka keenaysa dawladdu waxay lacageyn kartaa dhulka ay bixinayso oo waxay u bedeli kartaa saami iyadu leedahay laakiin ma aha dawladdu inay iyadu faa'iido ka rabto waxa weeye dawladdu waxay leedahay saamigaas ha u shaqeeyo qaab qiimo dhimis ama subsidies wax la yiraahdo xoogaa kabid amal inay idin noqoto oo aan isku dayno dadkii inaanu ama inay dhahan sanadkii intaas oo qof oo aanu proof garaynay haddaan idin keeno oo masaakiin ay iska bixin karin inaan marka daraasadda muujin doona faahfaahinta dhammaantiin waa mahadsantiin waxaan filayaa دراسات إنه بربله ونقطة دراسات بدن أو لقى سمي مجال كنا سواملها دان هاي أنت بدن أورال بالنا كوحن تعداد هذا لا لكن أنا واحد ديوان قلنا السلام عليكم